لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، weli waxaan ku dhex jirnaa suuraة البaqرة. waxaa noogu soo dambeysay xaydka iyo dhiigga xaydka ee ilaahay subxaanahu watacaala uu tilmaamay way ku su-aali doonaan. uu yihi xaydkee ku dhahdaa waa dhibe dumarka ka fogaato xaydku ku jiraan, ha u dhowaaniyo ay ka noqdaan ay ka qubaystaan, hadday meertaan meel idinka amray xagga horay ah uga waayo ilaahay kuwa toobakeenka badan iyo kuwa markaas daahire. dumarkiina waa beero oo kale buu yidhi ilaahay abuur beerihiina meel si allaala saa doontaan, si allaala sida aad doontaan mariya nafafyaalka ogaada inaad la kulmaysaan. ilaahay magaciisa ha ka dhigana wax idinka dadbe idinka teeda dhaaryaalkaa dhaaranaysa baari fashaan ood rabbi ka cabsataan oo dadka islaaxisaan. wax idinka reeba ha ka dhigina dhaaryaalkaalaad alla magaciisa ku dhaarateen. wallahu samiicun caliim. ilaahayna waa alla samiico maqal watacaala. laa yu-aakhidukum allahu, ilaahay idin qaban maayo billaqwi shayga bilaa macnaha ah oo fii aymaanikum dhaaryaalkiina dhex ahaaday, walaakin yu-aakhidukum, laakiin alla wuxuu idin qabanayaa bimaa kasabad waxay kasbatay alkiina, waxa qalbiga aad ku adkayseen tawateen qalbiga kaasuu alla idin qabanayaa. wallaahu ilaahayna gafuurun, waa la dembi dhaaf badan, xaliimun haddana dulqaad badan subxaana wa tacaala. aan addoommada durbe iyo dhaqsaba kusoo dedejinin cadaabka, aan addoommada si degdega cadaabka u saarin. ilaahay saasuu ahaaday subxaana wa tacaala. bacdama dhaaryaalkii la diiday, qof allaala qofkii markaa dhaartana inuu dhaarta jebiyo oo kafaaro gud la yimaado la amray. waxaa jira dhaar aan laysku qabanin. dhaartaan laysku qaban buu ilaahay tilmaamayaa. laa yu-aakhidukum allahu, ilaahay idin qaban maayo billaqwi shayga laqwiga ah, waxa iska dhaha ah, shayga bilaa macnaha ah ee carabkiina ku dareera. caaisha waxay tiri aayadda waxaa loola jeedaa qofka hadalkiisa uu leeyahay laa wallaahi, balaa wallaahi, wallahi waan ku dilaya, wallahi ku raaci maayo, wallahi ku siin maayo. carabkaa iska soo dardareera, carabkaa soo qabqabsada. kaa ilaahay nooma qaban subxaana wa tacaala. laakiin wax allaala wixii kafaaro gud looga baahnaanayo waa wixii qalbiga gunuda, waa wixii qalbiga lagu kasbado. walaakin yu-aakhidukum, ilaahay wuu qabanayaa xagga dhaarta bimaa kasabad quluubum, waxay quluubtiinu shaqaysay kasabto. wallaahu gafuurun, allana waa alla dembi dhaaf badan, xaliimun haddana dul leh. liladiina kuwii yu'luuna dhaaranahayay buu yidhi ila subxaana wa tacaala min nisaa'ihim, dumarkooda ka dhaaranaya. tarabusu ha sugeeno 4 ashhurin 4 bilood. fa in faa-uu, hadday soo laabtaan ayadoon 4tii bilood la gaarin, fa ina allaha ilaahay gafuurun, alla dembi dhaaf badan waaye, raxiimun ee naxariis badan. xukunkan ilaa la yidhaahdaa waa dhaarasho. waa ninkoo naagtiisa ka dhaarta inuusan jimaacaynin. liladiina yu'luuna, kuwa ka dhaaranahayo ka dhaaranahaya min nisaa'ihim, dumarkooda waa un dhaartay. hadduu waqti xadido ee uu yidhaahdo 4 bilood ama 3 bilood ama bil, xaaladda noocaasa haddii ay timaado waa inuu waqtigii u dhaartay uu sugaa. hadduu sugi waayo oo intii uu dhaartay ka hor 4 bilna ay ka yar tahay lasoo gaaro uu isticmaalo, kafaaro gud buu markaa samaynayaa. nebigaa dumarkiisii ka dhaartay bil, meel saruuna ka koray,
9 maalmood kadib buu soo degay. maxaa ku soo dejiya bay dhaheen? bishii weli ma dhammaanina, bishii waa 29 buu dhahay sal allau alayh wasalam. marka haddii xilli ay tahay ay dhammaato bishii, ama wixii macnaha dhaartuu dhaarnay hadduu xilli qabto ee uu dhaho intaasoo maalmood, waa inuu sugaa intii maalmood, ayaduna iska sugaysaa. haddii intii maalmood oon la gaarin uu ka dhaartay uu kasoo laabto kasoo noqdo ayadoo waktigii la gaarin, kafaara gud baa laga rabayaa. ayaddu waxay tilmaamaysaa marka qofkaan muddaba qabanin, wuu dhaartay, naagtiisii buu ka dhaartay, 4 bilood baa loo sugayaa. 4 bilood ayaa loo sugayaa, waa duusan muddo qabanin. 4 bil wixii ka badan la sugi maayo, maxkamadaa la geynayaa inanta. haddii 4taa bilood ka hor uusa soo laabto, hadduu soo laabto dhib kuma sugna, kafaara gudna ma laha, waayo xilli muusan qabanin. 4 bilna ma dhaafsiin kara macnaha. liladiina yu'luuna, kuwa dhaaranahayoo ka dhaaranaya min nisaa'ihim dumarkooda, kuwa dumarkooda ka dhaaranaya buu dhahay ilaa subxaana wa tacaala, tarabusu ha sugaano, sugid baa laga rabaa 4 ashhurin, 4 bil loo sugo. 4 bil markaa loo kaadinayay inantu joogaysaa. fa in faa-uu, hadday soo laabtaan, haddii ay soo noqdaan buu dhahay ilaa subxaana wa tacaala, haddii ay soo laabtaan 4tii bilood oo aan la gaarin, fa ina allaha ilaahay gafuurun, waa la dhaafid badan, raxiimun ee naxariis badan. wa in cazamuu talaaqa, hadday talaaq gooyaanna, waa warcad waa isagana, fa ina allaha ilaahay samiicun, waa alla maqla, caliimun ee cilmi badan. haddii talaaq ay gooyaanay warqadeeda siiyaan inantiina, ayadana ilaahay waa samiic caliima subxaana wa tacaala. dhaartii uu dhaartay ku joogi maayo, 4 bil ayaa loo sugayaa. 4 bil hadduu kusoo laaban waayo oo inantii la mucaamali waayo, tallaabaa laga qaadayaa. 4tii bilood oo lagu jira haddii asagoo dhaartay warqadii u raacsiiyo oo inantii uu furo, fa ina allaha samiicun caliim, ilaah waa alla samiico cilmi badan subxaana wa tacaala. hadduu xilli iyo muddo qabto, waa in muddadaasi la sugaa, bishardi waa inay 4 bilood ka yaraataa. 4taa bil ka yar hadduu dhaarto, idigu iska sugaysaa. haddiise uu ka soo laabto muddadii uu qabtay ka horna, kafaara gud baa markaa laga rabaanayaa. saasay xaaladdu markaa noqonaysaa. wain cazamu talaaqa, hadday dalaaq ridaan oo ay dalaaq gooyaan oo ay dumarkii furaan, fa ina allaha samiicun caliim, ilaahay waa alla samiico cilmi badan, maqal badan dhe haddana cilmi badan. waalmuطallaqaatu, haweenkii la furay, naagihii muطallaqaadkee markaa la furay buu yidhi ilaa subxaana wa tacaala, waalmuطallaqaatu yatarabasna ha sugeena bianfusihina nafafyaalkooda, waxay nafafyaalkooda sugayaan 3 quruu'in, 3 qur'i, 3 jeer ay markaa sugayaan. ha sugeeno 3 tahaaro ah, macnaha 3 jeer oo ay ka tahaaro noqdaan, ay daahir noqdaan, ay markaa sugayaan. dhiig baa ku dhacaya, wuu ka go-ayaa, wuu ku dhacayaa, wuu ka go-ayaa, wuu ku dhacayaa, wuu ka go-ayaa. xaaladaa ilaa laga gaaro way sugayaan. marka waa ciddadii dumarka la furay muطallaqaadka ahaa. waalmuطallaqaatu, naagihii muطallaqaadkee markaa la talaaqee la furay, yatarabasna ha sugeeno oo ha sugaano bianfusihina nafafyaalkoodoo yaysan guursanin nin kale. haddii la talaaqay way sugaysaa 3 quruu'in, 3 caado haddii kale, inay caado ku dhacdo. qolaa qoriga waxay ku fasiraan caado, qolaa waxay ku fasiraan dahaar inay noqoto. waalmuطallaqaatu yatarabasna bianfusihina 3 quruu'in, 3 qur'i bay sugaysaa, 3 jeer oo ay ka dahaaro noqdaan xayd ay markaa sugaysaa. 3 quru'. walaa yaxilu, xalaal uma aha, lahunna dumarkaa ayaga, an yaktumna inay qariyaan maa khalaqa allahu, wuxuu ilaahay ku khalqay fii arxaamihina, rixmiyaalkooda, wixii riximkooda ilaahay ku khalqay inay qariyaanna uma banaana. waayo ayada mooye cid kale og ma jirto. ayadoo muddada dheeraysanaysa oo ninkii hore rajo ka leh inuu bal rajactu dhaho, yaa laga yaabaa 2 bilood inay 3 caadaba u dhammaatay ay ka go-een. waa 2 bilood, waa suuragal. 2dii bilood
aydii caadii u dhammaatay saddexdii dalqay leedahay weli iima dhammaanin intaa fursad bay ninkii siinaysaa yaynan samaynin waxaa kaloo waxa raximka lagu qalqay ka mid ah wixii uur ah ee ilaahay raximkooda ku qalqayna yaysan qarinin ha caddeeyaano waayo ayaga mooye cid kaloo ogaan kartaayo markaa ma jiro walaa yaxillu uma xalaal ahaa lahunna dumarkii an yaktumna inay qariyaan maa khalaqa allaahu wixii ilaahay ku qalqay fii arxaamihinna raximyaalkooda waxaa suuragal ah ayadoon saddexdii quri u dhammaanin inay dhahdo way ii dhammaatay ninkii markuu soo noqdo dho rajactu war goormeed rajactu leedahay sababtay saddexdii caado ii dhammaatayba waayo idamay cid kale ma ogaan karto ayadoo ninka diidaysa taana yaynan dhicin waa goorme in kunna haddii yu'minna ayin kuu rumeeyey billaahi ilaahi iyo walyawmi alaakhiri maalinta aakhiro bishardi hadday alla rumaysan yihiin waa la hanjabayaa war haddaad alla aaminsan tihiin ood maalin qiyaamo rumaysan tihiin ha qarinina waxyaabaha ilaahay raximyaalkiina ku abuuray oo caada ah ama see kaa ah labaanayanan qarin buu dhaha ilaah subxaanahu watacaala waa in kunna haddii ay yihiin yu'minna kuwa rumaysan oo rumeeyey billahi walyawmi alaakhiri maalinta aakhiro wa bucuulatuhunna raggoodii nimankii hore ee qabay ee furay ayaa axaqu ku fiican oo ku xaqnimo badan biraddihinna soo celintooda raggii hore ee furay ayaa ku fiican fii daalika muddadaa dhexdeeda muddadaa ay ciddadu ku jirta raggii ayaa ku wanaagsan ilaa intay ciddadu dhammaan lahayd oo ay nin kala guursan lahayd oo ilmihii dayicmi lahaa oo adeer dhib badan loo geyn lahaa aabbuhu fiican inuu dib ugu soo laabto oy ayagu bacd inay isfahmeen ama isku bilowdeenba isna dabci yaqaanaan nin kaloo hadda ay baranayso oo dhibaato laga yaabo inuu la yimaado kii ay taqiinay xilliga qadida la siiyo iyo waxaa ka xanaajiya waa haddii islaax la rabee dagaalkii iyo furiinkii inuu sii socdo looma baahna waa in la waantoobaa waa in maskax la yeeshaa waa in la fakeraa waa in la isku dulqaataa xaaladaasaa waxaa uu tilmaamayaa inay ku fiican yihiin raggii markii hore furay inay dib ugu soo laabtaan wa bucuulatuhun goodii hore raggoodii iyo nimankoodiibaa dumarkii la furay axaqu u xaqnimo badan u fiicanoo u wanaagsan biraddihinna soo celintooda kuwaasaa markaa u fiican oo fii daalika muddadaa dhexdeeda ah in araaduu islaaxan hadday islaax doonayaan walahunna waxaa u sugnaaday waa dumarkii waxaa u sugnaaday mithlu ladii calayhinna kii dushooda ahaaday oo manaa wixii dumarka dushooda ahaaday oo kale oo xaqii ayaa dumarkiina ay leeyihiin walahunna waxaa u sugnaaday dumarkii oo loo baahanya in loo sameeyo oy raggu u sameeyaan mithlu ladii kii oo kale calayhinna dushooda ahaaday oo kale kii dushooda ahaaday oo kaleo xaqii ayaga lagu lahaa dumarka ayay ragguna ku leeyihiin macnaha kaasoo kale ayaa korkooda ahaaday waayo walirijaali rijaasha iyo ragguna calayhinna dumarkii korkooda darajay ku leeyihiin darajo ayay markaa dheer yihiin wallaahu ilaahay casiizun wa alla casiis ahoo xakiimun fal fiican ayaddu waxay tilmaamaysaa xukunka lagu magacaabo ciddada naag haddii la furo furiinka la furayna ay tahay naag cicaada ku cidda tirsanaysaa dalaaqna waan kusoo marnaye waa in ciddadeedu ay noqoto 3 caado ama inay daahir ka noqoto ama saddexaad inay ku dhacdo laakiin qurciga inta badan tahaara lagu tilmaamaa waalmutallaqaatu yatarabasna bianfusihinna 3 quru'in 3 qur'i waa inay sugtaa 3 qur'i ayay markaa sugayaan waa 3 jeer ka tahaara 3 jeer ay ka tahaara noqdaan ee xaydkii waa dumarka ayagu dhiigga ku cidda tirsada sidaa darteed baa naagaha la dalaaqee mutallaqaadka ah aan la guursan karin ilaa ay ciddo dhammaato ilaa ciddo ay dhammaato ay guursan karaan ninama guursan karo sidaa darteed subxaana wa tacaala wuxuu xaaladaa fursad u siinayaa ragga waxaa loo siinayaa in haddii ay isu bahdaan ay isku soo noqon karaan dalaaqna waxaan kusoo marnay lacalla allaha yuxdithu bacda dalika amran waxaa dhici karta ilaahay waktigaa kadib ee dalaaqu dhacay kadib inuu arrin cusub keeno
maxabo inuu keeno imisaa feer iyo haraati si isugu wadeen laisdalaaqoo laisfuray haddana wax iska jecel aan markaa jirin aan jeclayn xataa xaaskiisa inay kaneco cunto lacala allahi xaditha bacda dalika amran inuu ilaahay arrin cusub keeno uu wax soo diriyo yaa markaa dhici kartaa. dumarku haddii aysan caado ku cidda tirsanaynin, aysan dhiig lahayn, way gabowday ama semaba ku dhicinba ama jira iyo cilad buu uga maqan yahay, 3 bilood oo kaamil ah bay cidda tirsanaysaa. 3daa bilood inta kaamilka ah yuu ninku fursad leeyahay haddii dalqooyinkiisu aysan 3 gaarin. naagaha mutallaqaadkee la furay 3 dalqa u dhammaatay ayuu way cidda tirsanayaan, laakiin nimanku kuma soo noqon karaan. ciddada ay tirsanayso riximkaa lagu hubinayaa oo lagu ogaanayaa, sidaa darteed laakiin ninkii hore kuma soo noqon karo. xaalku saasuu markaa tilmaamaya. waalmutallaqaatu naagaha mutallaqaadkee la talaaqay yatarabasna ha sugeena bianfusihinna nafafyaalkooda 3 quruu'in 3 jeeray dahaaro noqdaan, 3 caado ha sugaano. walaa yaxilu xalaal uma aha lahunna dumarkii an yaktumna inay qariyaan maa khalaqa allaahu wixii ilaahay ku khalqay fii arxaamihinna rixmyaalkooda xayd ama uur ah. in kunna haddii ay yihiin yu'minna kuwa rumaysan billaahi ilaahay ama rumeeyey iyo walyawmi alaakhiri maalinta aakhiro. wa bucuulatuhunna raggoodii ayaa axaqu ku xaqnimo badan biraddihinna soo celitaan fii daalika arrintaa gudahii celiyo in araaduu islaaxan hadday islaax doonayaan. walahunna dumarkii waxaa ahaaday walahunna mithlu aladii calayhinna bilmacruufi. walahunna waxaa u sugnaaday waa dumarkii walahunna dumarkii waxaa u sugnaaday mithlu aladii kii oo kale calayhinna korkooda ahaaday bilmacruufi oo macruuf ah. wixii macruuf oy yihiine ragow dumarka xuquuqaadkooda siiya. macnaha idinka keligiin hamoodin inaad xuquuqu leedihiin. nin baa adkaysa iskibrinaya iswa weynaysiinaya ninaan ahay ani, haddaad nin tahayna xaq baa lagugu leeyahay, xaqa lagugu leeyahay bixi. walahunna waxaa u sugnaaday dumarkii mithlu aladii calayhinna kii dushooda ahaaday dumarka oo kale oo xaqii iyo wixii lagu lahaa ayaga oo kaley ku leeyihiin raggii waa inay ayaguna u fuliyaan oo bilmacruufi macruufi wanaag ah. walirijaali markii saa ay la tilmaamay ibnu cabaas wuxuu samayn jiray baa la yidhi intuu isqurxiyo iscarfiyo is-udgiyo indha kulna marsado yuu xaaskiisuu imaan jiray cadayday weliba maxaa la cadaydaa halkaasaa jaad lagu cunaa. markaasaa loo imaanaya islaantii asagoo bahdalan oo aan la dayi karinba ay karahsanayso ay mar uun hoos ka leeda allow kan yaa kaa wada. saa darteed bay aayadaha qur-aanka alla wuxuu ku bayaaninayaa dumarku inay nagu leeyihiin waxa annaga aan ku leenahay oo kale, waxa ay jecel yihiin aan jecelnahay inaan ku aragno oo kale inay nagu arkaan. ibnu cabaas fiiri intuu isqurxiyey ishagaajiyey indhakuushay cadayday iscarfiyey yaa la yidhi maxaasaa weliba tasfiix samaysto shanlaystay uu yidhi waxaan jeclahay sida aniga ay u jeceshahay sida aan u jeclahay xaaskayga inaan ku arko iyadoo udugsan carabsan cadaydatay dirac qafiif ah wadata saasoo kale ina igu aragto hanaan i qaab ay markaa jeceshahay. ayadan buu akhriyey walahunna mithlu aladii calayhinna bilmacruuf. dumarku waxay leeyihiin wixii shooda ahaa oo lagu lahaa oo xuquuqaad oo kale iyo ayaguna leeyihiin ee in la bahdala markaa ma aha. saa darteed buu ilaahay tilmaamay walirijaali rijaashuna calayhinna dushooda darajay ku leeyihiin, darajo ka sarraysa xuquuqaadka dumarka ay leeyihiin. midka raggu ay leeyihiin sareeya. saa darteed baa deecitaan layska rabaa, amar iska qaadashaa laga rabaa. intaasoo dhan laga amar qaataa, ayagaa amarkooda la fuliyaa, ayagaa la ateecaa. ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu tilmaamay alrijaalu qawaamuuna cala annisaa bimaa fadala allah bacduhum calaa bacdin. fadliga ilahay qaarkood qaar kale uu sara marsiiyey. fadliga maa xagga taqwadii iimaanka labadooda qofkii iimaan badan ba alla u dhow, laakiin fadliga ayaddu ay tilmaamayso way noo imaan doontaaye waa kamaalka caqliga, waa xooga, waa adkaysiga, waa garashada. intay kab ku tuurto, intay ku dhufato jalmad, intay mooy iyo kal ku dhufato iska baxaya, intuu iska tirtirto ma awoodi karta ayada, ma samayn karto. caawa afkaaga may kasoo baxda waa kufura keliya. 20 maalmood oo soo socota kama nasan kartid. aaw furinkaad sheegaysa, aaw inta lagaaga dhigaya. saa darteed wuu ka kamaal badan yahay.
wuu ka caqli badan yahay, wuu ka karti badan yahay, wuu ka adkaysi badan yahay. saa darteed ba ragga qawaamada loogu dhiibay. saasuu ilaahay tilmaama subxaana watacaala, walilrijaali calayhina darajay dheer yihiin. waata rasuulku tilmaamay, haddaan amri lahaa qof inuu qof kale u sujuudo, gabadhan waxaan amri lahaa inay ninkeeda u sujuudo. macnaha waa cilmiga xaqa weynaanta ah ee markaa lagu leeyahay. dumarka aad bay u yaraatay. guryaha waxa dudumiyey waa qofka yaqaana xaqa oo ku leeyahay. waxa guryuhu ay u baaba'een oo qoysasku ay u shatad u noqdeen, u kala furfurmeen, ilmihii ay u bahdalmeen, waxay tahay gabadhuna ma taqaano xaqa lagu leeyahay, wiilkuna ma yaqaano xaqa markaa lagu leeyahay. cishaa la tukaday, meeshaasuu fadhiyaa, dhalinyaro u sheekaynaya, xaas buu leeyahay, oo maxay ka samaynaysaa meesha? wuxuu imaanayaa sak dhexe dambe uu soo garaacay. ada xuquuqaadka waxyaabaha shatadka sameeyay ka mid tahay, waxyaabaha guryaha dudumiyay ka mid tahay. asagii baa yimid, haddii kale halkaasuu iska fadhiya qolkii fadhiga, tv daawanaysaa, casha ma laha, sheeka ma laha, maxaa kugu dhacay ma laha, ciyaalku wuxuu dhaama ma laha. qolana saasoo kale noqdeen. in yaroo rabbi u naxariisto xuquuqaadka fuliyo maahan. walaalayaal hala dadaalo, aayaadka alla hala fiiriya subxaana watacaala. wallahi haddii lagu dhaqmo sida ay yihiin, furiinkuna way yaraanayaa, dhibaato fara badanna way yaraanaysaa, maxabii kalgaceylna way imaanayaa, ilmahana waa laysla korsanayaa. haddii kale soddon guursato la noqona, soddon guursato, tanna wax mataqaana waxbuu ka dhalay, kan wax kaloo ka dhalay, kan wax waa mashaakil aad oo dhib badan. aathaar baa tilmaamaysaa inuu nebigu tilmaamay, oo kamaa qaal, ma jecla ilaahay ninka dhadhamiska badan iyo gabadha dhadhamiska badan, aad iyo aad buu u necab yahay. bacdinay xaaladdu sidaa tahay, yaa waxaa loo baahan yahay xuquuqaadka sida ay yihiin in markaa looga soo baxo. waalmuطallaqaatu, muطallaqaadkii dumarka la talaaqay, yatarabasna ha sugeeno bianfusihina lafafyaalkooda 3 quruu'in, 3 jeer oo ay daahir noqdaan ha sugaan. naagihii muطallaqaadkee la talaaqee la furay buu dhahay ilaahay, yatarabasna ha sugeeno oo ha sugaano bianfusihina nafafyaalkooda 3 quruu'in, 3 caado. dumarku waa inay arrintan u dhagan nuglaadaan. caabaa la furaa, isla beri way guursadaan. agtarkooda saasay u badan yihiin. caabaa la guursanaya, kujabi camal wax la dhaho, kujabi macnaha in aan dhul dhicin arag oo kale. xaaladda noocaasi waa mamnuuc. saa darteed gabdhaha la talaaqayo ha degdegina. waa xukun alle subxaana watacaala. naag la furay oo isla markii guursan karta waxaa ka jirta naagaan la gurigeynin. gurigeyska qasab maaha in guri loo kaxeeyo oo la geeyo. haddii inta la meheriyo xataa hotel ay isku arkaan oo duqul dhaco, waa khalaas, way dhammaatay, ciddii tirsanaysaa. laakiin waa qof aan la dukuulin baa loola jeedaa, aan la taabanin. axzaab baanu kusoo marnay 3 quru. walaa yaxilu uma xalaal ah lahunna ayaga an yaktumna inay qariyaan maa khalaqa allahu wixii ilaahay ku abuuray fii arxaamihina rixmiyaalkooda, in kunna haddii ay yihiin yu'minna billaahi kuwa rumaysan ilaah iyo walyawmi alaakhiri maalinta aakhiro. wa bucuulatuhunna raggoodii furay ayaa axaqu biraddihinna ku xaqnimo badan oo ku fiican inay soo ceshtaan fii daalika arrintaa gudaheeda. muddadaa ciddada ay ku jirto inuu rajactu dhaho ninkii baa fiican. in araaduu islaaxan, haddii la iscaynayo ma ahee, waa haddii islaax la doonaayo. haddii islaax ay doonayaan labadoodaba inay wax wanaajiyaan, taasaa ku fiican buu ilaah leeyahy subxaana watacaala. in araaduu islaaxan walahunna, dumarkii waxaa u sugnaado ay leeyihiin, walahunna mithlu aladii calayhinna, kii oo kale oo korkooda ahaaday ayay ragga ku leeyihiin, oo macruuf bilmacruufi macruuf ah. walirijaali, rijaashuna calayhina dumarka dushooda darajatun, daraja ku leeyihiin, ha darajeeyaano, qiimeeya. inuu nin raga yahay tilmaamo oo cabira, raganimadiisa u ogolaada, waa shay muhiim ahe. wallahu casiizun xakiim, alla waa casiiz xakiim ah. aطalaaqu marataani, alaaq waa 2 jeer. alaaqu buu yihi ilaahay marataani, waa 2 jeer. la furo la soo celiyo, la furo la soo celiyo. ta 3aad aawo, fa imsaakun waa haysasho ama celin la soo celiyo, bimacruufin si macruuf ah loo soo celiyo. waa midda 3aad. waa imsaak in lagu sameeyo oo gabadhii lahaayaa bimacruuf, aw tasriixun ama foofin iyo dirid iyo gabagabayn loo gabagabeeyo biixsaanin si ixsaan oo wanaag ah. walaa yaxilu xalaal lakum adinka idin ma aha, waa raggii, an ta'khuduu inaad ka qaadataan mimaa aataytumuuhunna wixii aad siiseen dumarkii shay-an
shay inaad ka qaadataan. nin galaas qaatay baa la sheegay iyo fargeeto iyo qaado maca u dhahaa. ragga qaarkood waa dhib badan yihiin nin baa inta cabaar la murmay waa la guursaday gabadhii wuu aqal geysto inantii baad ku xumaatay wuxuu xisaabanayaa wixii baxay, basashii, bariiskii, wixii la cunay. sidaa darteed waxaa loo baahanya walaalayaal ragga kaasatan inay xilkas inay noqdaan. waxaan hadday socon waayaan qadar allah, ilahi baa qadara subxaana watacala, isaga dhaqaaq. waxaa dhici karta inaysan khayr kuugu jirin, khayrkaaga ilaahay ku siiya subxaana watacaala. tiibuu ilaahay noo tilmaamaya ee uu leeyahay walaa yaxilu idin xalaal ma aha oo idinma banaana ragow lakum adinka an ta'khuduu inaad ka qaadataan mima aataytumuuhunna wixii aada siiseen shay-an shay ilaa an yakhaafaa inay baqaan maahane. waa labadii isqabtay. allaa yuqiima inay oogi waayaan xuduud allahi ilahay xuduudiisa. gabadhii baa qaatikaa taagan, nolol niyad ay kugu dhaqda maba haysataba. mar allaala markaa soo gasho guriga waxay moodaa shabeer inuu soo galay ama libaax inuu soo galay, waraabi inuu guriga soo galay. way dhacdaa marka gobol ka mid ah. kadeed iyo qaati nolol ma aha. labada nolosha waa laba nolol iskugu faraxsan, waa laba nolosha wadaagi kara, waa laba noloshooda ay fiicnaan karto. haddii inantu ay dhahdo anigu ninkaan kuma qanacsani, ani ninkaan maba la dhaqmi karaba, in la jajjoogaa ma aha. in la kadeedo la dhibo qasab ku dhaq la dhaha ma ah. qalbigu waa muraayad, qofka uu jecel yahay buu soo jiitaa. qofka kale inay sariirta habeen kasta ku oydo oo dhiikar ku dhaco oo dhibaato ku dhaco yaan lagu kalifin. saa darteed buu ilaah leeyahay ragow wixii aada siiseen dumarkoo dahab ah oo dollar ah waxba ha ka qaadanina ilaa an yakhaafaa inay baqaan maahane. labadii isqabtay allaa yuqiimaa xuduud allahi in ilaahay xuduuddiisay oogi waayaan, inayna oogin. fain khiftum haddii aada cabsataan allaa yuqiimaa inaynan oogaynin xuduud allah falaa junaaxa markaa dembi calayhimaa korkooda ma aha, ninkii iyo naagtiiba fiima iftadat bihi waxay markaa isku furato kaa qaata. marka abow ma kula noolaan karay ku tiri, iska kay fasax. qulci baa la dhahaa, madaxeeday furanaysaa. xilligii nebiga hal mar bay dhacday sal alla alay wasalam. thaabit ibni qays yaa naagtiisii ku tiri yaa rasuul allah, thaabit khuluq iyo diintuna ku ceebeen maayo, waa nin diin wanaagsan, waa nin khuluq fiican, laakiin anoo islaamka ku jiraan kaafirnima isaga baqaya, ma awoodi kari, ma la dhaqmi karo, mana la noolaan karo rasuulka ilaahay. maxaa sameeya? ma la isku kadeedmaya? qasab idjoog. ragga gobolka mid ah ayaa waxay xaaladoodu tahayba cirka intuu jiro ufrinka uu ku jiraa. waayo waa walaasha, ha dhibin. hadday ku dhaado walaalow niyadda makuu haayi, si xaalku yahay ma jiro, wax dhibaataa kuma sugnaa. haddii labaduba ay baqaan xuduudda alla inay oogi waayaan falaa junaaxa dembi calayhimaa korkooda ma aha. gabadha waxay bixiso iyo wiilka wuxuu qaataba fiima iftadat bihi waxay markaa isku furata buu dhahay ilaa subxaana watacaala. thaabit inantiisa ama gabadhi uu qabay markay sidaa tiri rasuulku thaabit buu u yeeray. muxuu dhahay? thaabidow dalqa iska fur, beertaadana ka qaado. ma celinaysaa xadiiqadiisa? ayadaa lagu yiri beer bay ahayd meherkii la siiyey. ma celinaysaa? haa celinayaa. gabdhaha gobolka mid ah 10,000 oo dollar haddii meher looga dhiga xataa ninku haddaynan u baahnayn meeshay ka keenaan waa keenayaan. haddii la masaakiinta wax loo aruurinayaa 500 iyo 300 waxaa laga yaaba inay waayaan. laakiin ninkan iska fursoo maaha, 10,000 baa laga yaaba inuu hesho ay keento. meeshay ka keenaan kaali sheeg adi. saa darteed buu ilaahay u fasaxaya subxaana watacaala. markaasuu rasuulku ku yiri ma u celinaysaa xadiiqadiisii beertiisa? haabay tiri. riwaayadaha qaarkood waxay ku daray inay tiri xataa waziyaada, waa u kordhina hadduu rabo, haddii uu doonayo waa u kordhinayaa. saa darteed baa rasuulku wuxuu ku yiri thaabitoo beertaadii ka qaado, iskana dalaaq. macnaha waa qulci. madaxeeda waxay ku furanaysaa maalkeeda, waxay ku furanaysaa meherkeeda. marka wixii la siiyey mehera kelimay bixinaysaa, mas waa lagu kordhin karaa. ragga qaarkood baa waxaan goobjoog ka ahaa cala dalqa 10,000 inay dhaheen. waqti carabta aada joogna sacuudi, cala dalq inuu dhahay taqaariba 10,000 oo riyaal, 10,000 oo riyaal, 10,000 oo riyaal, maxay noqon 30,000 oo riyaal. muxuu ujeedayaa? wuu jecla gabadhii inay sii joogto rabaa. waa la maslaxeey, si un baa lagu maslaxeeyey, lacagtiina waa laga bixiyey. marka qolada qaar baa waxay tilmaamaan ay leeyihiin waa wax allaala waxa asagu codsado. soo adi ma diidin
nin la-aan naag la-aan iyo lacag la-aan baa laysugu darayaa, waa dhibaato. saa darteed fii maftadat bihi waxay cabiraysaa bay leeyihiin wax alla waxay isku furato cidda ma laha, macnaha cadad ma laha iyo tiro. qole waxay tilmaamayaan sida Thaabit oo kale beertii wixii meherka ahaa haddii la siiyeyna inay soo celiso, haddaan la siinin inay ka tanaasusho oo markaa faraha ka qaado. taana waa la tilmaama. fa in khiftum haddaad baqdaan allah yuqiima inaydan oogin xuduud allahi ilaahay xuduudiisa falaa junaaxa calayhima korkooda dembi maaha, waa wiilkii gabadhi isqabaye fii maftatad bihi waxay markaa isaga furato madaxeeda. Thaabit beertiisa buu qaatay, waa afhayeenka rasuulka sal alla alay wasalam. Thaabit ibni qays ma taqaanin horta, qisadiisa ma maqasheen? ninka la ashtakeynayo inani leedahay maba la noolaan karo, waa afhayeenkii rasuulka sal alla alay wasalam. nabigu markuu qudbeeyo cabbaaruu oran jiray inta dhimana Thaabit baa dhamaystiraya. qiimaha uu rasuulka agtiisa ka lahaa, sharaftuu rasuulka agtiisa ka lahaa. saa darteed baad arkaysaa canug yaro dhalinyaro qurux badan, islaam baa dhahaysa ama gabar baa dhahaysa kuma rabi, markaasuu isku dhajinayaa. war quruxda iyo wanaagga dhalinyaradaad leeda waxaa isaga dhajinaysaa, iska siidaa walaashaha dhibine, tu ka fiican baad heli. banaanka dad baxdaa tu kastoo saas kuu soo eegaysaa. marka saatar yaa laisku kadeedmin walaalayaal. inkasta oo la tilmaamay dumarku inay ka mamnuuc tahay ama xaaraan ay ka tahay sabab la-aan inay raggu ka codsadaan dalaaqa, haddana haddii sabab jirto wax uun hadday jiraan madaxeeda way furan kartaa, madaxeeda ayay markaa furanaysaa. tilka xuduudullahi taas waa ilahay soo ridkiisii waa ilaahay xuduuddiisii. falaa tactaduuha ha ku xadgudbina, war xuduudda alla ha ka tallaabina. dumarow in badan joojiya furiinka faraha badan, war ragga in badan ha qayaanina. marka horeba waxaa lagu soo xirogeliya ninka in wax laga cuno. dhibaatada taale waxay tahay waxa maku kugula dhaqmi kara iyo kadeed baad igu tahay keenaya, marka horeba daacad lama ahayn. miskiinka wuxuu soo shaqaystay, hooyadiisa u diran lahaaye dhex bay u fadhisay, kii kale ka qaadatay, kii kale ka qaadatay, kuwa waxa ku noqday ku adkaado qasab kaga dhamaystay inuu guursado, kiibaa loo gurigeeyey. waxay sheegta ma laha, markaasaa niyad iyo waxyaaba kale iyo isjacayl iyo maxabiisan markaa jirin. marka taasaa inta badan keentee xaqiiqda ha lagu dadaalo. marka laisguursanayana ha noqoto guurka qiimo badan, rabbi agtiisa loogu dhawaado subxaana wa tacaala, sharafi cizina markaa mudan. tilka xuduudullahi waa ilaahay xuduuddiisee falaa tactaduuha ha ku xadgudbina. waman yatacadda qofkii ku xadgudba xuduud allahi ilaahay xuduuddiisa fa ulaa'ika kuwaasi hum aalimuuna, aalimiin waaya buu dha ilah subxaana wa tacaala. waa dulmi falayaal, waa idab daroolayaal, dadka xuduudda alla ku xadgudbahaya. ninkii oon waxba kaa halaynin oo dhibaato ku gaarsiinin, maxaa kuu qarar ku dhahaya? markaad wiil dhashana dahab kuu gada, markaad gabar dhashana qalin kuu gadahaya, yaad meesha u fadhiisood leedahay maba ku rabida, cufka adaan kugu nacay, markaan ku arkaan kugu lalabooda, markaa xaalku saa markaa yahay. ha xadgudbina, dhaalimiinta noocaas ilaahay ma jecla. ragow idinkana iska ilaaliya. gabadhii maskiinta ahayd oo gurigoodii aad ka soo wadatay oo 3 iyo 4 aad ka dhashay oo laga yaaba inaysan nin kaleba markaa helin, waxna kaa halaynin, yaad dhibaatii xadguda ku samaynaysaa. taana yaysan markaa dhicin. fa ulaa'ika kuwaasi hum aalimuuna, kuwa dhaalimiin oo dulmi falayaala. aطalaaqu طalaaqu marataani, 2 jeer waaye. fa imsaakun haysashaa loo daayay markaa kadib bimacruufin, si macruufa loo soo ceshto loo haysta gabadhii, aw tasriixun biixsaan, ama si fiican markaa loo diro. tiibaa maanta la la'yahay. imsaakna layskuma haysto wanaag, macruufna laysku diri maayo, mana laysdhaqanayo, mana laysdhigaayo. waa dhibaatadana haysata. markaasa qaarkood arkaysa suuqa laysku xeelsanaya, gabadhi dhagax bay wadataa, so darood aan arkayo kale dhagax bay wadataa, ninkii dadku ku dhex cararaya. sidaas laa ilaaha ila allah. marka waxaasaa ilaahay diidaya subxaana wa tacaala. marka waa macruuf in laysku haysto iyo ixsaan in laysku dhigo. walaa yaxilu ma banaana, xalaal oo maaha lakum adinka, waa raggii xalaal idin ma aha, an ta'khuduu inaad ka qaadataan mima aataytumuuhuna shay-an. wakayfa ta'khuduunuhu baa noo imaan doonta. waqad afdaa bacdukum calaa bacd, war seed uga qaadanaysaa waxaad siisay? dahab aad u xirtay seed uga furanaysaa? faraanti aad siisay see uga baxsanaysaa? waa caqli gaabnimo, maalkaygii baad ka gudana baad maqlaysaa. saa darteed buu ilaah yidhi idinma xalaal aha inaad shay ka qaadataan ilaa an yakhaafaa anlaa yuqiima xuduud allah, ilaa an yakhaafaa inay cabsadaan mooyaane. waa labadii isqabtay. anlaa yuqiima inay oogaynin xuduud allah, ilahay xuduuddiisa. labadooda in kan kale ka kale xaqiisuu gudan waayo, in gabadhii ay kasoo bixi weysa xaqa wiilka,
wiilkiinu kasoo bixi waay xaqii gabadha fain qiftum haddaad cabsataan allaa yuqiima inaydan oogin xuduud allah falaa junaaxa dembi calayhimaa korkooda maa labadiis qabtay fiima iftatad bihi waxay isku furato ayadoo ay bixiso asagana uu qaato. tilka xuduud ullahi taa waa ilahay soohedintiisii falaa tactaduuha ku xadgudbina waman yatacadda qofkii ku xadgudba xuduud allahi ilaahay xuduuddiisa fa ulaa'ika kuwaasi hum ayagu aldaalimuuna dhaalimiin waaye. laba dalqa sooma dhammaanin waa lis haystaa soo maaha. tii saddexaad hadduu tuuro ka waran fain طallaqahaa hadduu طalaaqo waa la furay waa lasoo celiyey waa la furay waa lasoo celiyey xabad baa dhiman. fain طallaqahaa hadduu طalaaqo ee uu furo dalqadii saddexaad falaa taxilu lahu uma xalaal aha asaga min bacdu dalqadaa saddexaad kadib xataa tankixa ilaa ay guursato inantii zawjan nin hayrahu hayrkii ah nin aan asaga ahayn ilaa ay kasoo guursato. fain طallaqahaa ninkii labaad haddii uu soo furo falaa junaaxa dembi calayhimaa korkooda ma aha waa inantii iyo ninkii hore an yatarajacaa inay isku soo laabtaan in dannaa hadday malaynayaan ama ay yaqiininayaan an yuqiima inay oogayaan xuduud allahi ilahay xuduuddiisa. dagaal dambe, furin dambe, ilibdaro dambe, xaajo dambe, iscayd dambe inaysan dhacaynin. wa tilka xuduud ullahi taa waa ilaahay xuduuddiisa yubayinuhaa alla wuu caddaynayaa wuxuu caddaynaya u iftiiminayaa liqowmin yaclamuuna qoom garanaya qoom cilmi leh oo fahmaya ku dhaqmaaya yuu ilahay u caddaynaya subxaana wa tacaala. fain طallaqahaa hadduu ninkii طalaaqo gabadhii waa dalqadii saddexaad. saddex dalqa hadday dhammaatay rajca ma jirta walaalayaal. dadaa afar markii shan markii lix mar isku soo noqsada. dadaan aragnay la yiri ma saddex dalqa idiin dhammaatay haa kafaara gudkun sameeyo 60 masaakiina cunto siiya ilma isku dhalooyin. qaalaa la yiri afartan beri sooma subxaanaka yaa ilaahay war dalqooyinku haddii saddex dhammaadaan khalaas way dhammaatay isku soo noqon maayaan ninkii iyo naagtii dib dambe ilaa ay nan kale kasoo guursato asaga aan markaa ahayn. ninkaa labaad ee soo guursanaya maxlal baa la yidhaahdaa. maxlashu ay diinta ogoshahay waxa waaye ninkaan soo uma dhammaan dalqadii saddexaad waa in nin kale uu guursado. markuu guursado kabacdina iskii uu aruuso iskiina uu soo furo. ad saddex dalqaadii ku dhamaata gabadha faraha kala baxa orod duurkaaga gal. inkiis hadday dhacdo lacalla aad iska hor timaadaan ayadoo inta lasoo guursaday hal dhal ah amase laba dhal ah amaanba waxba dhalin aad iska dhacdo aada alla inaad isheshaan waad isguursan kartaan. maxlalka diintu ay qabto waa sidaa. maxlasha ay soomaalidu samayso waa mamnuuc walaalayaal. in badan dumarku ilaahay ha ka cabsadaana subxaana wa tacaala. shiiqan bay u tagtay waxay tiri saddex baa laygu furaye ma leeyahay ee rajo mayuu yiri inaad nin soo marta maahane. shiiq kale u tagtay sidii oo kaleu yiri. shiiq kale u tagtay sidii oo kaleu yiri. way baxaysaa nin bay hoos ka mehersanaysaa ama ninkii laftigiisaba samaynayo saaxiibka intuu la heshiiyuu leeyahay war intaana qaada doqon yaho bal iisoo maxlab caawa wax badan ha iga haysanin qola kula dardaarantaa. mar allaala markii xataa loo xaraynaya wuu sii dardaarmayaa wuxuu leeyahay saan ha samayn kana ha samayn ka ha samayn bahadhow markii loo soo furo inanta xataa wuu su-aalaya war muxuu kugu sameynaya waxyaabo lamid ah. maxlalka noocaasi waa mamnuuc walaalayaal. diinta islaamku waa ka mamnuuc looma ogola. ma taqaanin buu yidhi rasuulka orgeyga lasoo caariyeysto waa orgey ragga wax maxalala orgiyaasha aaway wax maxalali jiray orgi lasoo caariyeysta buu dhahay nabiga sal alay wasalam waa nin dhanoog weyn oo ashraaf ah oo mataqaana qiimo leh oo maddan maamula waa orgi caariyaan baa loo soo qaataa. waa midka wax maxlala buu dhahay rasuulka sal alay wasalam. allah lacanado midka wax maxlala iyo kan wax loo maxlala labadaba. kan wax maxlala iyo kan wax loo maxlalo labadaba allah lacanado. nacladba alla korkooda ha ahaato lagu maxlalmi maayo. laba siba laguma maxlalmo. midda koowaad waa in lala dardaarmo oo shardi looga dhigo gabadhaan ii guurso iisoo furo maxlal ma aha kaa. ta labaadna waa haddii ninka intuu naagta guursado uusan wax jimaaca ku samaynin lada iyo macaan haddaysan labadooda dareemin ma maxlalmayso. rasuulka sal alla alayh wasalam waxaa u timid rifaaca alqurad naag uu qabi jiray. waxay tiri yaa rasuul allah rifaaca i qabi jiray waa i furay saddex dalqana way dhammaatay. cabdiraxmaan ibnu zubayr baan guursaday
cabdiraxmaan ibnu zubayr wax igama tiraayo intay weliba marada raanteeda qabatay tiri tarashka kan oo kale waa mataqaanaa alaabtiisa ama tinta xabad waxa iga deeqda oo kale. markay sidaa tiri rasuulku wuu fahmay ujeedaday wadatay. rasuulku wuxuu yidhi ma waxaa rabta inaad rifaaco noqoto wallah hadan u noqonayn ilaa ninka dambe malabyaroogiisa aad dhadhamiso adigana kaaga uu dhadhamiyo. abubakar meeshuu fadhiyey, khaalid albaabkuu soo garaaci rabay. marka xaqa lagama xishoodo. gabadha inanta waad ujeedaa waxay rasuulka su-aalayso isuu nabigu ugu cadaynaya sal allau alayh wasalam maya buu dhahay u noqon maysid ninkii hore ilaa in jimaac dhaco maahane, ilaa in si fiican laysku arka maahane, ilaa mid kasta ka kale macaankiisa inuu dhadhamiyo maahane, si kale oo lagu maxlalmaayo ma jirta buu dhahay rasuulka sala allahu calayh wasalam. saa darteed ii guurso iyo daqiiqad ii haay iyo saacadan kuu qabanaa iyo hadday 10 daqiiqda dhaafto haddaba kuma jiri iyo lacagteed ii soo celinaysaa iyo ragga ku dardaarmow ilaahay ka cabsada, orgiyaasha wax maxlalow idinkana ilaahay ka baqa subxaana wa tacaala. maxlashana faraha kala baxa. fa in طallaqahaa haddii ninkii uu طalaaqo naagtii waa dalqadii saddexaad, falaa taxilu lahu uma banaano xalaal uma aha min bacdu ay bacda dalqati thaalita dalqadii saddexaad kadib xataa tankixa ilaa ay nikaxsatay guursato zawjan zawj ilaa ay guursato nin gayrahu gayrkiisa ah. fa in طallaqahaa hadduu soo طalaaqo ninkii labaad iskiina usoo طalaaqon saacad loo qabanin falaa junaaxa dembi calayhimaa korkooda ma aha waa ninkii hore iyo naagtiiye an yataraajacaa inay dib isugu soo laabtaan in dannaa hadday malaynayaan an yuqiimaa inay oogayaan xuduud allah ilaahay xuduuddiisa oo mid kasta ka kale xaqiisa uu fulinayo. wa tilka taasi xuduudullah waa ilaahay xuduuddiisa yubayinuhaa wuxuu u caddaynayaa ilaahay liqowmin yaclamuuna oon garanaya. laakiin kuweenoo kale orgayaal noqday, dadaaba waxay u fadhiyaan meesha inay wax maxlalaan, dadaaba ujeedadooda waxay tahay u samaysteen telefoono loogu soo diraa in naagtii saanoo kale noqota la maxlalo. ilaahay ha laga baqo subxaana wa tacaala, xuduudda alla ha la ilaaliyo. ilaahay saas wax noogu cadaynaya subxaana wa tacaala. maxaa naga qarsoon, maxaana laka qariyay? haadaa basaa'iru linnaas tibyaan likulli shay. wax kas ilahay saasuu noogu cadaynaya subxaana wa tacaala. aw dadkii qaadan lahaa 24 saac waa la isceelsanaa, 24 saac bulshadii baabaa baa ku dhacay, 24 saac nin naag baa is haystaa, 24 saac waxbaa la isfuraya, 24 saac xataa shareecad si qatl isku furi maayo. dhibaatada waxaana keliyey oona keena waxay tahay waa jahli iyo qoom garanayaan noqonaynin. marka aad ha loo dadaalo insha allahu tacaala. rabbi subxaana wa tacaalana xaqa iyo wanaag hana waafajiyo, diinta iyo sida ay tahayna ilahay hana fahamsiiyo, dumarkana ilaahay khayrkii wanaaga ha tusiyo. laa yu'aakidukum allahu ilaahay idiin qaban maayo bilaqwi shayga bilaa macnaha ah ama laqwiga ah oo fii aymaanikum dhaarartiida ahaaday, walaakin yu'aakidukum wuxuu idiin qabanayaa ilaahay bimaa kasabat waxay kasbatay quluubukum qalbiyaalkiina. wallaahu ilaahayna gafuur waa la dembi dhaaf badanoo xaliimun dulqaad badan. liladiina kuwii yu'luuna dhaaranahaya min nisaa'ihim daalahooda ka dhaaranaya tarabusu ha sugaano 4 ashhurin 4 bilood iyo dumarkii kaadinayaan. fa in faa-uu hadday soo laabtaan 4 bilood oo aan la gaarin fa ina allaha ilaahay gafuurun waa la dembi dhaaf badanoo raxiimun naxariis badan. wain cazamu talaaqa hadday talaaq gooyaan oy go-aansadaan fa ina allaha ilaahay samiicun alla samiicahoo maqal badan waayo caliimunha cilmi badan. waalmuطallaqaatu laakiin muطallaqaadkee la furaynaya tarabasna ha sugaano bianfusihinna nafyaalkooda 3 quruu'in 3 qari ha sugaano, macnaa 3 jeer oo ay daahir noqdaan ha sugaano. walaa yaxilu xalaal uma aha lahunna ayaga waa dumarkii an yaktumna inay qariyaan maa khalaqa allaahu wixii ilaahay ku abuuray fii arxaamihina rixmiyaalkoodo uur ama dhiig ah. in kunna hadday yihiin yu'minna kuwa rumeeyey billaahi ilaahay rumaysan iyo walyawmi alaakhiri maalinta aakhiro. wa bucuulatuhunna raggoodii ayaa axaqu ku xaqnimo badan oo ku ajdalsan oo ku fiican biraddihinna radin iyo soo celitaan fii daalika waktigaa gudi ay soo celiyaan in araaduu haddii ay doonayaan islaaxan wanaag. walahunna dumarkii waxaa u sugnaaday mithlu ladii kii oo kale calayhina korkooda ahaadayoo bilmacruufi macruuf ah wixii ayaga lagu lahaa oo xuquuqaad oo kale iyo ayaguna markaa leeyihiin. walirijaali rijaashuna calayhina dumarka korkooda darajay ku leeyihiin. wallaahu ilaahay casiizun waa alla casiiz oo amarkiisu qaalib yahay xakiimun ee fal fiican. aطalaaqu marataani
طلاق والله جير فإمساك وهيسشو تسدحادنا بمعروف سي معروف الله هيستو أنا لما هديت ما تقول سؤالي هل بهرتي هشاسي إن أنت صفي عنه هيسو أو تصريح أنفوفين يدرت بإحسان سي إحسان الله قد مسترو والله قد ترترو ولا يحل حلال ومعها ولا يحل حلال إذن ماها لكم أذيك ورقية أن تأخذوا إن قالتان ضمركي مما آتيتموهن وحي آتيسان شيئا شيء إلا أن يخافا إني بقان ماهن الله يقيم إني أوجي ويان حدود الله إلى حدود ديسا فإن قفتم هذا كعب ستان الله يقيم إني لن أوجي حدود الله هنا فلا جناح الذنب عليه ما كركو ضمها والذي اسقبتي فيما افتدت به وحي مركا إساقفرته مدحيدا وحي إساقفرتي أيضو ديكتو أساقنا أوقاتو كركو الذنب معها تلك تاسي حدود الله إلى حدود سوايه فلا تعتدوها فكحد قدبنا ومن يتعد قفكي كحد قدبا حدود الله إلى حدود ديسا فأولئك كواسهم الظالمون ظالمين واي فإن طلقها هدو منكو طلاق وقبدي طلقدي سدحات فلا تحل حلال معها له أسجى من بعد طلقنا سدحات أطوري كدب قبده ما حلال ما بنانا إنه كسو عشتو حتى تنكح إلا إجورسته زوجا غيره زوج الأسجاهين من غير كيها فإن طلقها ننكي لبطها دو صوت طلاق إننتي وصوفره فلا جناح الذنب عليهما كركودا معها وننكي هوري سيدح بالقودة معطي قبدي انت لا قرسة لا صوفري اسكد لو أروسي اسكد لو صوفري لبدو ذا الذنب معها أن يتراجعا إني دب إسكسور نقطان إسكسور لابتان إن ظن هدي ملينا وأي لتهي أن يقيم إني أوغيان حدود الله إلى حدود ديسا هدي إسليه الحدود ألا وأوغي كرتان وحدن بيكركو ذا معهم بويري إلهي سبحانه وتعالى وتلك حدود الله تا إلهي حدود سوايه يبينها وعدينيا وحونا عدينيا لقوم قوم كاسو يعلمون قرنيا أما مكاؤك وإذا طلقتم النساء والطلاق لا نصيص على بلس من شيء وجبتوا بالله التوفيق والله سبحانه وتعالى أعلم.